ما دام الله يخلطيه أنا شبابنا أول وأقهري وأقول مالك تلنا أنا أقول بداني ليه هنا أنا أرق إن خلطونا له حرسي meel wax dheer ka sugayso biro ku qoon maayo in maxkamadda sharafta iska kaysiidaysa madana gudoomiye maxkamadda sharafta ka codsanayaa xukunka inay noo khafiifiso in magaalada degan oo daris aan hayo oo nin shabaabnimo u garanaya ma ahayn maxkamadda waxa ka codsanaa cadaalad inay helo Soomaha maxkamadda sharafta waxaan ka codsanaynaa in ay sii deyso maanta oo taariikhdu ay tahay 12 bisha 2 2025 maxkamadda ciidamada qalabka sida Jubbaland waxay ku dhawaaqaysaa xukunka eedeysanayaal maxkamadda la hor keenay eedeysanayaashaas oo kala ah eedeysanaha koobaad maxamed daahir ibraahim arab inabaar baaruud yuusuf ku dhashay deegaanka Kismaayo maxkamaddu waxay ku heshay qodobada 25 lala akhriyay xeerka argixisada la dagaalanka argixisada lala akhriyay qodobka 190 xeerka ciqaabta guud waxaana ku xukuntay qodobka 199 oo xeerka ciqaabta guud waxaana ku xukuntay 10 sano xabsi ciidana eedeysanaha labaad mukhtaar cabdi aadan afay hohobiye ina hibo diiriya jaamac ku dhashay darar weyne oo sanaaga waxay isagana maxkamaddu ku heshay qodobada 199 oo lala akhriyay 25 waxayna maxkamaddu ku xukuntay 7 sano oo xabsi ciidana eedeysanayaasha kale ah jamaal cabdi maxamed 47 jir ah ina nadiifo xirsi maxamuud ku dhashay qardho deegaanka Kismaayo maxamed cabdullaahi baajuun 27 jir ah ina hodan maxamuud ku dhashay Kismaayo deegaanka Kismaayo iyo eedeysanaha xiga oo ah maxamed faarax cabdi 29 jir ah ina safiya jaamac cali ku dhashay laascaanood deegaanka Kismaayo eedeysanaha afraad oo ah uga saacad siciid 32 jir ah ina maryan cabdullaahi warsame ku dhashay wardheer deegaanka Kismaayo afartaasba maxkamaddu waxay ku heshay qodobada 383 xeerka ciqaabta guud oo lala akhriyay qodobka 25 xeerka la dagaalanka argixisada waxaana maxkamaddu ku xukuntay min 5 sano oo xabsi ciidana eedeysanaha u dambeeya oo ah nimco cabdirasaaq maxamed 20